waxaan qaban qaabadiyo qorshaha lagu jirnaa qabyaalad laga tagiyo qabiil wax ku qaybsashada ninkii khalad mudayo dastuurkan qoranayo aqaynunkuna waa sida qabso yaan laga howlay tusaale ahaan magaaladan Boosaaso waxay leedahay golo deegaan waxay ku dhisan yihiin reero X iyo Y iyo Z la yiraahdo S iyo R iyo W oo reero kala oo Boosaaso deganna meeshaas kuma jiraan markii la yiraahdo golihii deegaanka baa loo codeynayaa 31 weeye 31 kaliya ma soo sharaxayso X iyo Y ahayd mise W iyo R iyo Z waa soo sharaxayaan iyagana waa loo codeynaya mise kuwaas kooto ugu xiran tahay isla iyagii baan hadhow saf u galeynaa waxa aan rabnaa inaan ka guurno waa kuraasta qabiilka lagu qaybsanayo waxa kale oo loo maandiri inaan ka guurno kuraasta qabiil lagu qaybsanayo waxaan rabnaa waani ku bilownay warqayga ugu horeeyay urur siyaasadeed baa furmaya dadku ururradaasu mabaadi'dooda iyo barnaamijyadooda siyaasadooda u soo bandhiganaya waxa tartamaya marka waa urur siyaasadeed anu marka ururka siyaasadeed oo aan codkayga siinayo waxaan doon codkayga aan ku qiimeeyo laakiin sida asalka waxa weeye waxa tartamaya waa urur siyaasadeed urur walba siyaasadeedna wuxuu soo sharaxanayaa liiska uu arko inay mudan yihiin inuu golaha deegaanka Boosaaso u sharaxdo liiska ku saleeyo xubnihiisa ka imaanayaan mar walba iyo cid uu arko inay mudan yihiin inay Boosaaso ay golaha deegaan u noqdaan xisbiga wuxuu ku saleyn karaa qabiilada hadda ku jira kuwa aan ku jirin isaga u taala ikhtiyaarkiisa wax sharci oo xanibaya oo dhahaya qabiilada hadda jooga kaliya soo tartami karaya ma jiraan waa wax inaan ka baxno wax iyagii fadhiyo u diidayo xaqooda duudsiinayana ma jiraan kuwa ka maqan cid u diidaysana ma lahan qofku qof bila qabiila ma jiro marka urur soo sharaxdo hebel soo sharaxdo hebel xaafad bay galaysaa aakhirkeeda laakiin ururkan kuma soo sharaxan xaafadeeda wuxuu ku soo sharaxday xubin ururka kamida ururka mabaadi'diisa ku soconaysa ururka barnaamijkiisa fulinaysa marka waxa tartamaya waa urur siyaasadeed ninkii xilka qaadi karaya aqeemaya bulshadu midkii u qalma xusheen aqeemaya bulshadu midkii u qalma xusheen qof iyo hata loo tartamo